بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago video yar oo ku saabsan dunida siday noqon doonto koronaha markuu dhamaado. Videogan waxaan ku soo gelin doonaa dhowr barnaamij inaan hal meel isugu keeno. Sida wada ogtihiin, markastoo dhibaato dhacdo ama dagaalo dhacaan, dagaaladaas kadib dunidu waxay wajahaysaa wajiyo cusub ama waji qurxoon ama waji oo aanan qurxooneyn, midku doona ha ahaado. Haddaan tusaale soo qaato, xilligii dagaalkii koowaad dunida waxaa dagaalka 1914 waxaa soo daahiray barnaamij la yiraahdo passport, in dalku gal la sameeyo. waddan kasta uu samaysto dalku gal uu ku tagi karo waddan kale, taas oo keentay in dadkii isku socodkoodii sidii hore ay isbeddel ku dhaco. Saas oo kale mid la mid ah dagaalkii labaad dunida markuu dhamaaday 1945 waxaa soo daahiray xaalado aan hore u soo jiri jirin, sida in la abuuro hay'ado caalami ah sida hay'adda caafimaadka adduunka iyo golaha ammaanka in la sameeyo, si aynan mar labaad dagaal oo sidaas baaxadiis u weyn tahay aynan u dhicin. In la sameeyo heshiisyo iyo is-afgaradyo oo dunida dhan oo ka dhaxeeya. Saas oo kale dagaalkii qaboobaad dunida markuu dhamaaday, haddana waxaa soo shaacbaxay in dunida haddana si kale u qaabaysmantay. Dagaalkaas sida wada ogeydeen waa dagaal in muddo ah socday oo Soviet-kii ku burburay iyo wadamo kale dhan ay burbureen, iyo wadamadii oo Soviet-ka gacanta ku hayba dunida si kale u qaabaysmantay. Dagaalkaas oo inta badan ku salaysana aragtiyo iyo ideology fikrad oo dowlad kasta fikrad xambaarsan tahay, sida communism iyo socialism, hanti wadaag iyo hanti goosad, oo looga guuleystay qoladii oo communism-ka ahayd. Markay dhamaatay kadib, haddana dunidu waxay u qaabaysmatay in ay u gudubto cawlama ama wax la yiraahdo globalization, in dhaqaalaha la isku furo, suuqii oo xor ah la sameeyo, dunidii ay noqoto sidii hal magaalo oo kale. Markii ay guuleysatay socialism-kii, laga guuleystay qoladii Soviet Union-kii iyo xulafadiisii, waxaa la aasaasay hay'ad la yiraahdo World Trade Organization, hay'adda ganacsiga adduunka. Hay'addaas oo ay ahayd howlaheedii ugu muhiimsan inay dunidu isku furto, waddan kasta waddanka kale wax geyn karo, wax ka iibin karo si xor ah, ayadoon kala sooc aan lagu sameyneynin shirkadaha meeshaas ka shaqeeya. Intaan waxaan ka wadaa inay hordhac u tahay mowduuca aan ka hadli doono maanta, oo ah corona markuu naga dhamaado dunida siday noqon doontaa. Markii isbedeladaas dunida kusoo ziyaadaan, waddan kasta wuxuu isku dayayaa inuu nafsadiisii iyo shacabkiisii iyo ammaankiisii gacanta ku dhigo. Weli janji kalaa jiray weerarkii Twin Towers kadibna, dunida haddana waxay isku dayday inay si kale u qaawdo, oo ah in Mareykanka la soo baxo dimuqraasiyad oo aragtidiis foreign ministry-ga ah, inay wadamadan oo dunida saddexaad ah uu ku baahiyo, si wixii dhibaato ah meeshaas uga imaan lahayd uu u kontaroolo iyagoo meeshooda joogaan. Marka hadda arrintan oo koronaha ah markay dhamaato, sida noqon doonto reality-ga ah Ilaah baa og, laakiin annagana waxaan isku dayaynaa inaan saadaalino, aan odorosno wax dunida kusoo zaa'idi doono. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo la isweydiin karaa waxay tahay, maadaama hadda waddan kasta oo awood la isku dayayo in dadkiisi kala baxo
wadamada kale sida Mareykanka, Canada, Australia waxay hore u sameeyeen muwaadiniintooda waxay ka saarteen wadamadii oo ay banaanka ka jireen. taa shaki ay sameyn kartaa mar waxaa la dhihi karaa dadkaas caafimaadkooda ayaa loo turaaya saas darteeda loo saaray. mar kalena yani waxyaabo kale hadday dhacaan si dadkan yani wadankooda u joogaan taana qorshaheed way noqon kartaa. wadamo badan oo ka mid tahay Faransiiskana yani waxay u wacdeen safiirkoodii oo fadhiyay wadankaasi China. intaasi kadib maalmahan dhan waxaa socday in wadan kasta uu isweydiiyo yani ama uu ku shaqeeyo sidii u qaadan lahaa magdhow ama u dacweyn lahaa wadankan oo cudurka kasoo ifbacay oo China ah. marka haddii ay noqoto in China yani dacwad la weydiiyo ama maxkamad la saaro ama ay wax kale noqoto kolba asigana waa isdifaacaya intuu isdifaaci doono. laakiin muhiimadda meesha ku jirta waxay tahay dhanka dhaqaalaha markaan ka fiirino dunida siday noqon doonto inay isku dhacaan awoodaha dunida hadda ugu waaweyn oo ah Mareykanka iyo wadankan China. haddii ay noqoto labadan wadan inay isku dhacaan ama dagaal ha ahaato oo waji ku waji ah ama dagaal oo dadban ahaato dhinaca dhaqaalaha ah, haddaan ma sheegi karno sida saxda ah in dagaal dhici karo oo gacan la iskula tegi karo. laakiin mana filayo inay taas dhici karto sababtoo ah dagaalkii qaboobaa ee dunida gacan la iskulama tegin. waxaa lagu kala adkaaday aragtiyo iyo fikrado dhaqaale. haddana marka waxaa muuqata in China uu ku dadaalayo in uu noqdo awoodda dunida ugu sareysa isagoo kobcinayo dhaqaalihiisa iyo xiriirkiisa uu la leeyahay dunida kale iyo dunida saddexaadba. marka Mareykan ma ogolaan karaa waa in China awoodii kala wareegto waa su'aal ayadana taxliilin iyo wax badan u baahnaan karto in waqti badan laga niqaasho. marka haddii uu Mareykan ogolaan waayo dhaqaalaha hadda China koraayo waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 6 ilaa 7 meelihii yani ugu dambeysay. kan Mareykankana marka la fiiriyo boqolkiiba 3 koraayo. marka meesha waxaa ujeedaa 3 jibaar in laga sareeyo dhanka koritaanka dhaqaalaha. taa waa qodob oo la dhihi karo dunida awoodeeda waxaa la wareegi karaa China haddii ay fursad ku sii hesho. laakiin haddii noqoto in yani dunida dhan hal meel uga soo horjeesato cudurkan dartiisi China ayadan waxay ku noqon kartaa caqabad kale oo ka hor istaagi karto inay noqoto guusha ama awoodda dunida si maamuli doonto. waxaa kaloo isweydiin mudan 70 sano ugu dambeeyay hadda dunida waxaa maamulaya Mareykanka. dunidan kale dunida saddexaad iyo reer Yurub ma ogolaan doonaan in China la wareegto awoodda dunida oo ay si hagaajiso. ma la qiyaasi karo sida saxda ah. laakiin yani wadamo qaar sida haddaan yiraahno Talyaaniga oo kale oo Yurub ka jeestay xilliga dhibaatada ka jirtay, China wuxuu ahaa wadankii ugu horeeyay ama ugu aktifsanaa oo la gaaro kaalmo. marka waxaa ka muuqata meesha isxulufaysi oo wadamada Asiaanka ay si khaas ahaan isku xulufaysanayaan si ay ula wareegaan awoodda dunida. marka Mareykan inuu aqbali doono ama inuu diidi doono yani kolba si sahlan ma ku aqbalayo. laakiin haddii laga awood roonaadan way suurtagali kartaa. taa waa qodobka ugu muhiimsan oo dhinaca dhaqaalaha iyo awoodda ah. waxaa kaloo muhiim ah wadanku doonaha la wareego ama China ha la wareegto awood ama Mareykan ha sii hayo yani koronaha kadib xaaladda oo dunida ama sidee noqon kartaa. sida la saadaalinayo horta hay'ado cusub inay soo baxaan ama dhaqaalaha ahaato ama globalizationka inuu culeys badan ku yimaado maadaama uusan dowlad kasta ayna hadda diyaar u ahayn inay wadamadan sidan xaaladan ku jirto wadan kale la macaamisho.
mid kasta xuduudeed inay xirato ay ku dadaaleysaa dadkeeda caafimaadkood iyo sheegadi kororkood ay ku dadaasho. taa waa qodob muhiim ah. qodobka kale oo muhiim noqon karana waxay tahay in wasaaradda caafimaadka howlaheeda caafimaad ay sare u sii qaado, maadaama yani haddii ay jiri doonto sida lamid ah in cudurro kale soo baxaan mise musiibooyin kale ay dhacaan, si ay dowladda uga sii gaashanto in wasaaradda caafimaadka yani tayadeed iyo shaqaalaheed iska caabinteed ay iska caabin karto inuu ku dadaalo wadan kasto. waxaa kaloo suurtagal ah in wadamada hadda dunida ka jira in wadan kasta isku filnaansho dhaqaale iyo isku filnaansho caafimaad isku dayo. taa waxay muhiim u tahay in yani wadanka hadduu isku filnaado yani nidaam dowlad ahaan in wax isbedel yimaadaan waa suurtagal. hadda haddii la fiiriyo wadamada oo awoodooda markazi ahayd ama centralized inay kaga fiicnaayaan wadamada oo dimuqraasiyada ka jirto iska caabinta cuduradan ama musiibooyinkan. taa haddii la fiiriyo waxaa la isdhihi karaa in yani dowlado badan ay qaadan doonaan yani nidaamka ah in dowladda markazi laga maamulo, center laga maamulo, si wixii wadanka xaaladiisi hal meel looga sugo, go-aankana hal meel uga soo baxo. midda kale oo muhiim ah meesha ka soo bixi karta waxay tahay dimuqraasiya naftirkeed ma burburi kartaa? su-aal ah. yani si guud ma wada burburi karto, laakiin qeyb ka mid ah dimuqraasiyada sidii hore inaynan ahaanin ayaa macquul ah. waayo wadamo badan hadda waxay sameeyeen inay awood zaa'id siiyaan madaxda oo ugu sarsareysa si go-aano degdeg ah usoo saari karaan. go-aanadaas hataa aanan mararka qaar lasoo marsiinin baarlamaanka iyo wasiirada aan lasoo marmarin, toos madaxweynaha usoo bixiyo. intaa kadib dunidu waxay kaloo laga yaabaa inay u qaabeysanto in markuu koronaha dhamaado, waa tan aan soo sheegnay caafimaadka wax badan laga bedelo, waxyaabaha soo zaa'idi karaa waxaa ka mid ah in dadka loo sameeyo wax la yiraahdo telehealth, ama qofka laga daaweeyo meel oo fogaansho ah, isagoon isbitaalka tagin oo gurigiisa joogo, dhakhtarka la xiriiri karo, waxay calaamadaha sheegan karo, qaab saasa loo daaweyn karo. yani calaamadihii iyo wixii cabashadiisii dhakhtarka u sheegan karo, ama si live ah ama si ka duwanba yani dhakhtarka ay isku arki karaan. waxaa kaloo soo zaa'idi kara dunida haddii yani sidaan ama koronaha ama inuu sii jiro, inta hadda uu jiro bal qayb ka mid ah la arkay in waxbarashada laga dhigo mid oo oo si fogaan barasho ah, qofka isagoo joogo gurigiisa joogo inuu wax baran karo oo aanan loo baahnayn in fasal la fadhiisto ama la isku imaado. tan waxyaabaha soo zaa'idi doonta ay ka mid tahay. waxaa kale oo ka mid ah in laga yaabaa inay soo zaa'ido in yani ganacsiyada ama meelaha qaar ay noqoto mid ku salaysan mid oo aan toos loo macaamileynin, ay adeegayaan robotyo iyo gawaari service ah, sidii meelaha hadda qofku tagayo wixiisa isaga soo iibsanayo si toosa loo macaamilayo ay sii yaraan karto. kaliya qofka online wax ka dalbanayo, qofka adeega keenaya inay noqdaan robotyo, taasoo ayadana sabab u noqon karta inay dunida ku imaato yani soo zaa'ido unemployment, yani shaqo la'aanta soo zaa'ido. waayo wixii hal 10 shaqaale qaban lahayd laga yaabaa in 2 robot maalintii lagu qabto. marka taasna waxyaabaha soo zaa'idi karaa ka mid tahay. waxyaabo kaloo badanaa soo zaa'idi karo ay ka mid tahay in lacagtan oo warqadda ah ay yaraato, sida hadda ay isku haystaanba labada dowladood oo Mareykanka iyo Chinaha, loo guuro lacag oo mobile ah ama warqad kaarar lagu jaranayo, ama si oo aan digital ah u badan in qaybkaas loo guuro, taas oo wadamo badan ay ku khasaari doonaan, wadamo badan ay ku faa'iidi doonaan. waxaan kusoo gabagabeynayaa dhowr qodob oo muhiim ah. dunida la wareegi doono koronaha markuu naga dhamaado, ma China ma Mareykan baa sii wadi doono? waa su-aasha ugu muhiimsan. haddii uu dhinacan dhaqaalaha kororkan dhaqaalaha
uu China la wareego Maraykan sidaas ay ugu dhamaanaysaa waayo duni badan waxay aaminsanayeen in Maraykanka cudurkan sida saxda ah isaga caawin doono tina waa ku fashilmay waxyaabaha China caawinaya waxay tahay inuu ku guuleysto in dhaqaalihiisa kobac uu sameynayo sanad walba uu saddex jibaar ku dhawaad uu ka sareeyo kan Maraykanka wataa qodobka kale ay dunida isku bedeli doonto waa in la isticmaalo lacagtan oo digital ka ah taas oo haddii digital loo guuro yani dawlado badan ay ka hari doonaan dawlado badan ku guuleysan doonaan waa qodobka kale ugu muhiimsan qodobka kale in globalization sidii hore ay u shaqeyn jirtay inaan u sii shaqeyn karin waayo kala shaki badan ayaa yimid haddaan kala shakigan aanan loo helin maxkamadda cadaalad ah ii sheeg oo waxaan xaqiiqda soo saaraysa ayadana kala shakigan wuxuu sababi karaa in dawlad kasto ayada isku filnaato waxtarkeed wax soo saarkeed ay yeelato marka waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa mowduucii koobnaa oo ahaa cudurkan kadib maxaa dunida sidee u qaabeysmi doontaa marka waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin mowduuc oo iska baaxad weynaan wuxuu u baahan yahay in muddo intaan ka badan saacado ah lagu soo koobo laakiin ma aynan sameynin si wax yaroo kooban baan rabnaa inaan dadka u ifino si qof walba yani view aragtidiisii iyo meeshaas ku aada wax ugu fahmo kadibna u raadsan karo marka waxaan idin leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu